Hooyo sheekadii maalintii ugu horreysay ee Guule iskuulka aaday. Guule maanta wuxuu aadayaa iskuulkiisii ugu horreysay. Wuxuu dareemayaa farxad iyo cabsi isku dhex jirta. Hooyadiis ayaa gacanta ka qabatay oo si deggan ula hadashay. Baska jaalaha ah ayaa istaagay hortooda. Guule wuxuu xoog ku sii daayay gacanta hooyadiis. Gudaha baska wuxuu la kulmay carruur kale oo welwelsan. Aniga waxaa la yiraahdaa Guule, ayuu si tartiib ah u yiraahday. Waxay isla fadhiisteen geelle iyo ari oo ilin ka qulqulaysa. Guule wuxuu xasuustay waanadii hooyadiis ee ku tiri waxbaro geesi noqo hana cabsan. Markuu iskuulka gaaray ayuu arkay maclimadiisa cusub Miss Ashley. Magacaa ayay weydiisay Guule, laakiin hooyo waxay igu yeertaa Farxaan. Farxaan waa magac qurux badan ayay ku tiraahday iyadoo dhoola caddaynaysa. Markuu kalaaskiisii tegay wuxuu arkay carruur qaar oo ooynaya. Wuxuu ogaaday inuusan keligiis ahayn, arday walba uu welwelsan yahay. Balse markuu qalinkii iyo Koreaankii qaatay inuu wax sawiro bilaabay, cabsidii badneed waa ka yaraatay. Fasalkiina wuxuu isku beddelay meel lagu faraxsan yahay. Markay saacaddii dhammaatay, Guule wuxuu dareemay geesinimo cusub. Hooyadiis ayuu u orday uu ku yiri, Hooyo, maanta waan ku faraxsanahay maalintayda. Guule wuxuu ogaaday in berri ay ka sii wanaagsanaan doonto. Dhammaad.